waxaan guri gabadh ah ka soo qaatay lug digaag ah. Markaan cunay, caloosha ayaa i xanuuntay. Dabadeed waxaan sii daayay dabayl weyn oo magaalada oo dhan burburisay. Waxaan ahay Fati oo ah borofesor ku takhasusay hidde-sidaha. Maalintaas markaan shaqada imid, waxaan ogaaday in shaybaadhkaygu uu fowdo buuxda ku jiray. Jiirarkii aan tarminayay ayaa baxsadeen oo meel walba ku ordayeen. Qaarkood waxay ku boodeen sandwiijka xubinta guddiga, kuwa kalena waxay si toos ah ugu boodeen afka saaxiibkay. Markaan u tegay inaan ardaydayda weydiiyo waxa dhacay, waxaan si kama ah u taabtay kabaal, waxaana sii daayay dhammaan jiirarkii harsanaa ee qafisyadooda. Maamulaha ayaa xafiiskiisa iigu yeedhay. Waxaan isku dayay inaan fadhiisto, laakiin kursigu aad buu iigu yaraa, marka waxaan isku cadaadiyey in yar. Isla markaas hamster ayaa ka soo dhacay laambada oo si toos ah ugu dhacay koobka qaxwaha ee maamulaha. Waxa dhacay markaan arkay si degdeg ah ayaan uga baxay halkaas. Fasalkaygii markaan ku soo noqday, waxaan bilaabay inaan wax dhigo. Markaan sabuuradda wax ku qorayay, caloosha weyn ayaa ku dhegaysay oo tirtiraysay nuuradda. Ardaydu way qoslayeen. Fasalka kadib, waxaan si qarsoodi ah uga qaatay baarka snickerska khaanadayda miiska. Markaas ayaan arkay Lily oo isla markiiba waan jeclaaday. Waxaan go'aansaday inaan miisaanka iska dhimo si aan iyada u soo jiito. Qoyskayga oo dhan waxay la dhibtoonayaan arrimaha miisaanka. Laga bilaabo ayeeydayda 100 sano jirta ilaa wiilka walaashay ee 5 sano jirka ah, dhammaanteen waxaan nahay kuwa aad u buuran. Inkasta oo miisaanka oo la dhimo ay u muuqatay wax aan suurtogal ahayn, waxaan ku biiray jimicsi Lily dartiis. Inta dadka kale jimicsi samaynayeen, anigu si dhib ah ayaan u lugaynayay. Markii kuwa kale xari ku boodayeen, anigu hawada ayaan ku boodayay. Markii ay culayska qaadayeen, anigu waxaan qaatay Snickers. Xitaa waxaan isku dayay daaweynta irbadaha. Laakiin kadib markii dhakhtarku irbado aan la tirin karin igu muday, weli waxaan ahaa mid gaajaysan. Maalin maalmaha ka mid ah, Lily waxay iga codsatay inaan kula kulmo baar, halkaas oo nin majaajilayste ah uu si xun iigu jeesjeesay. walaal muuqaalka wuu kugu socdaa magacaas hadduu kugu weyn yahay follow waa isoo dhehe copy link badan inoo taabo kuna salina xabiibkeena sallallahu calayhi wasallam alle jannada ha ku geliyo aamiin soo qor. Wuxuu yidhi waxaan cuni karaa buur dhan, waxaana loo dhisay sidii bam gacmeed. Kafooyinkiisu aad bay ii xanuujiyeen. Markaan guriga imid, waxaan bilaabay cunid xad dhaaf ah. Habeenkaas waxaan ku riyooday inaan noqday qof weyn, dhulka ruuxaya tallaabo kasta, neeftayda oo keliyana ay burburisay kala badh magaalada. Markaan soo toosay, waxaan si toos ah u aaday shaybaadhkayga, waxaana isticmaalay khibradayda si aan u sameeyo daawo miisaanka lagu dhimo. Waxaan isku tijaabiyey, daawaduna way iga miir dabooltay. Laakiin jidhkaygu wuxuu bilaabay inuu yaraado sidii buufin hawadii ka baxday. Markaan miyirsaday, waxaan ahaa mid caato ah. Indhahayga ma rumaysan karin. Aad baan u farxay oo waxaan u degdegay inaan dharkii cusbaa soo iibsado, waxaana isku dayay dhar badan oo caato ah. Si aan u qariyo aqoonsigayga dhabta ah, waxaan Lily u sheegay inaan ahay saaxiibka Fati ee baadi, waxaana ka codsaday inay mar kale baarka ila timaado. Laakiin intii aan sheekaysanayay, farta ayaa barartay. Sida muuqata, daawadu waxay lahayd wakhti xadidan. Si degdeg ah ayaan Lily iga fogeeyey. Habeenkaas waxaan wada aadaynaa baarka. Markii majaajilaystigii isku midka ahaa uu masraxa soo fuulay, marka hore waan la ciyaaray, laakiin